maa'ido afrisa marciido hees amaan geeraan axay garidu darhaadhe buuri balmay dadka qaar naftooda u daysa adduunka maalmo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Muuqaalka bilowgiisa sidaa kusoo aragteen waxaa geeriyootay ama dhimatay gabar caan ah oo la shaqeey jirtay tiim lagu magacaabo Wasiir Shapalaza. Gabadhan magaceedu waxaa lagu magacaabaa Maa'ido waxaana ka tirsaneyd tiimkan lagu magacaabo Wasiir Shapalaza. Gabadhan Allah u naxariisto waxay dhimatay maalintii Jimcaha ahayd waxaa laga soo wareegay 2 maalmood ku dhawaad. Muuqaalkan sababta u soo qaatay waxay tahay gabadhan 2 qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad waxaa waaye qof walba horta muuqaalkan soo gaaro inuu gabadhan u duceeyo inuu Ilaahay kitaabkeeda gacanta midig ka siiyo una naxariisto. Waayo waxaa la dhahay 40 qof ducadooda waa la aqbalaa. Waxaa laga yaabaa 40 qof aan ay daawatay oo gabadhan u duceysay inuu Ilaahay ugu naxariisto. Marka walaal ducada waxba ha ka baqiilin. Waxa kaliya u baahan tahay marka dhimato waa duco. Qodobka labaad waxay tahay ninkan lagu magacaabo Wasiir Shapalaza horta waa nin xun. Sababta ana ku sheegayo gabadhan waxay ka tirsaneyd tiimka waxaa lagu magacaabaa Maa'ido. Dadkii dhan way u soo tacsiyeen sida hadda wiilkan lagu magacaabo Marshall waa aragteen. Sidoo kale Nasteexa way u soo tacsiyeysay. Wiilkan la dhaho Hebelka qaan ma laha waxa ku magac dheeriyaa san waa kana xaaladiis wiilkii dhijir waa kana u soo tacsiyay. Sidoo kale Leeja waa kana uu soo tacsiyay. Dad badan oo tiimka ka tirsanaa gabadhan u soo tacsiyeen laakiin ninkii dhan oo mas'uuliyadda tiimka hayay oo tiimka madax u ahay waa kana hadda dhow muuqaal soo dhigay maba ka qasnaba qof dhanaa dhintay uma soo tacsiyeenin. Hadduu xitaa YouTube soo dhigi karin bariisa bulshada kale xitaa gabadhu uma soo tacsiyeenin. Marka horta taas waa wax laga xumaado. Ninkan dad badan waxay dhigi jireen Wasiir Shapalaza nin xun waaye gabdhuhu saan ku sameeyaa gabdhuhu ku dheelaa. Laakiin maanta tan ceeb ay ku tahay qof uu yaqaano tiimkana ka tirsanaay oo tiimka u kala kicinayay oo lacag ka sameynayay maanta dhimashadiisa inuu ka gaabsado runtii waa gunnimo waay taas wax fiicanna ma ahan. Teeda kale dadkan oo dhalinyaradan oo meesha la isku keenayo waa laga waala waxa laha comment laana tihiin dadka ka waala si dadku u qosliyaan ama ay hadalhayn u sameeyaan qof kasto meesha la keeno way caynayaan. Adduunyada loo bari waa tan gabadhan shalay muuqaal la duubaysay maanta way niga hoosaysaa ma fahanteen. Marka qof kasto oo adduunkan ku tushanay adduunka loo bari waa waxa horumarsataa leedahay. Marka dadkan oo Nasteexa iyo tiimka kale to isoo waalayo oo muuqaalada caayid iyo balaayada laga duubayo bari marka dhimatiin ninkan xitaa idin tacsiyeenayo inta nooshiina lacag oo idin ka sameeyana man idin af yaqaano. Marka adiga laga rabaa inaad maskaxdaada ka shaqaysiisid. Kulay waxa dareemi karaa meesha horta inaad lacag ka qaadanaynin bajaajra caga lagu soo tuuraa meesha waa tagtaa Muhammad tiimku way isku imaadaan wax waa la duubtaa laakiin waxa fiican inuu qofka disbilin leeyahay oo xadkiisu ku egaado qof walba oo meesha la keeno aflagaadeynaysiin maanta waa aflagaadeysay birina waa dhimato muuqaalada way wareegayaan ninkan kaamada leedahay adoo dhimato lacag ka sameeyna oo qof aflagaadeynaysid marka runtii waxaas wax laga fiican yahay way muuqaalkan muhiimada u soo qaado waxay tahay in gabadhan horta loo duceeyo inuu Ilaahay jannada firdawsi geeyo dhalinyarada oo tiimkaas ka tirsan oo dadka aflagaadeynayaan inay ku qoys qaataan waayo maanta waa adduun barina waa aakhiro waa la dhimanaa ma fahanteen marka niman yahow bal gabadhan u soo duceeyno commentiga ugu soo duceeyno dhalinyarada u soo tacsiyay iyo muuqaalada gabadhan ku saabsan ay idin la wadaagi doonaa haddaan ugu cusub tahay muuqaalkan like inoo saar channelkana subscribe soo dheh